boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa saaka waagi hore waxay isugu soo baxeen barnaamij ballaaran ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin hadalkii ka soo yeeray dawladda Ingiriiska ee ku sheegtay in Soomaaliland ay ka jirto khatar nabadgelyo. Barnaamijkan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay waxa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda ee ka hawlgala gobolka Saraar, dugsiyada hoose dhexe ee Horyaal Primary School iyo waliba iskuulo kale, iyadoo sidoo kalena barnaamijkan ay si weyn uga qayb qaadanayeen maamulka dawladda hoose ee degmada Caynaba oo horkacayo maayirka magaalada Caynaba Faysal Axmed Jaamac Faysal Sanweyne. Ugu dambeyntii dadweynahan oo aad u tiro badnaa isugu soo beeshubteen fagaaraha khayriyada ee magaalada Caynaba, halkaas oo ay munaasabadan ka hadleen maayirka magaalada Caynaba Faysal Axmed Jaamac, ku-xigeenkiisa Cali Xaaji Maxamuud Aadan Cali Sanyare iyo xubno kale oo dooran iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Horyaal Jaamac Aadan Carsaayo, kuwaas oo isaga dabamaray in Soomaaliland ay tahay dal nabadgelyo ah, isla markaasna Soomaaliland ay 22 sano ku soo naaloonaysay nabadgelyo xilli ay dawladaha dariskooda badankoodu ay ka holcayeen dagaal la sokeeye. يا نبت يا درك كترت أول كسرار مية كترت مية دقلا عينوا كترت وحينو كأجن حي إنه يلاشنا نبتجليس وحنو شيء إن عالم إلى الصومالي لا وإحنا بتجلي درة وكتير آلي ترين حويرات وحي كل شيء نبتجلي درة ناي ويكبر شيئين لقى ساري إنه يلاشنا نبتجلي عالم كانوا وحنو شيء إن الصومالي لان وإحنا بتجلي درة وكتير حويرات آلي ترين جمهورية الصوماليلاند هنورا وينا جمهورية الصوماليلاند هنورا شروع هجوجو هذا هجبو نقول إحنا الصوماليلاند ومقدس ودولة كعتين ودولة وناكسن إذا وحنا يالك كوخ نبتليه هذا ومقدس هجبو نبتيت كهدعو نبتليه هذا هي كفيين ولا غير كفيين ولا نراشح كفيين وحنا أركاننا نهاي اعتراف ما نجوا بحر نجوا اعتراف أهل. أنا قبل ما نروح ما بني تكسر وصل حياة في الحرم شامع عبد العالي كنا نقول وقت أقرأ دولة الصوماليلاند يجي كسر يجي وستر تعليمات الدولة الإنجليزية الدولة كل شيء جاي بدون أرجع شوكته تواصل أنا الدولة وعطلنا بدأ أرجع بس شوكته عالم كله بوش كده كود إنجليز كابو كده جاي بالله marka waxa uu sheegay caalamka inay Soomaaliya dalka ugu degan geeska Afrika oo Ingiriiska argagixisada joogta soo waxa aan ka deganay baa uu sheegay Jaamac Boodacade, Fishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Caynaba.